ku soo dhawaada barnaamijkan oo idinka imanaya magaalada Qardho ee gobolka Karkaar ee Puntland gordhoweyd baanu soo galay magaalada Qardho waxa imika ila jooga gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan gudoomiye aad iyo aad baad u mahadsan tahay in magaalada aad nagu soo dhaweyso aad iyo aad baan ka mahad celinaya maasha Allah noo timaadin waa idin ka mahad celinaya soo dhawaada aan leenahay Qardho ku soo dhawaada hawlaha aanu nimi magaaladan Qardho waxa kamid ah in hay'adda aanu la socono ARC American Refugee Committee ay cunto qaybiyaan dadkii abaaro ay saameeyeen gaarigii raashinka siday dhexdu ku soo jira marka intuu raashinku imanaya ayaa gudoomiyaha waxa ka codsaday bal hadda meelaha taariikhiga ah ee magaaladan Qardho inaanu soo booqano isla markaasna magaalada iyo nolosheeda iyo sida abaartu u saameysay warbixin naga siiyo gudoomiyuhu dadna gudoomiyuhu wuxuu sheegay in halka ugu horeysay laga bilaabaya ay goobtan noqoto gudoomiye goobtan maxaa la yiraahdaa goobtan waxa la yiraahdaa halalow yahay booqan halalow yahay booqan runtii waa meel lagu xasuusto oo qadiimi ah oo loogu talagalay sidii aan anagu ka soo gaarnay la yiraahdo waa meesha ay jinku degan yihiin jinka waa degan waa halalow yahay booqan bal hay booqan baba loo bixiyay marka waxa maanta idinkeena halka inaan nala aragtaan waan ku faraxsanahay inaan laga soo qayb gashaan runtii halka waa meel taariikhi ah oo cid kasta oo Qardho imanayso aan jecelnahay inay ka bilaabato halalow yahay booqan halalow yahay booqan waxa weeye dhowr god oo isku xiga sidaan qiyaasay kii hore inuu soo maray iyo kan aad iyo aadna way u dheer yihiin intiina imika aan arkaynin gudoomiye maxaa markaa lagula maagay inay tahay xarunta jinka waxa lagula maagay waa wax lagu arkay weeye xiliyadii hore dhulkan waxa joog jiray jin habeenkii dhulkan waa kaahi jiray ciidii aagan soo gasha habeenkii waa la carari jiray oo qofkii waxa weeyaan isagoo si kale baa la carari jiray ka bacdi quraan baa la saari jiray quraan baa laga saari jiray jinka dad qaabilsan baa jira marka meesha tan hadeer waa hog weyn oo runtii wax weyn halkan ku ah nin la yiraahdo maxamed HALALOW naxariistay ayaa hadda ka hor dadka u horseeday in la geli karo wuxuu ku abuuray malab ku abuuray malabkiiba ka soo guray hadeer jaranjara u jeedaan jaranjarada isaga ku sameeyay waa uga mahad celinayna hadeer waxa weeyaan dadku waa galaan oo runtii waa dhirta ku taala markasta waa qoyan tahay doogi abaar baa iska qoyan tahay marka waa arin rabaani weey gudoomiye waxa tiri waayadii hore saasa la rumaysnaa marka imika ma waxa la rumaysay jinkii inuu iskaga tagay والله ولي dadku qayb baa rumaysnay laakiin waxa aaminsanahay in hadeer jinkii yaraaday waa sidii horeys jirin baad aaminsanahay waa tahay taariikhda dadka yaqaana maxay kale ku sheegeen meesha taariikhdeedu maxay tahay biilahan والله meesha tan walba oo soo jireena wuxuu leeyahay waxaan ku garaacsaday meesha tan iyadoo leeyahay halalow yahay booqan weeye waa meel jinku uu galo waa meel jinka uu yahay gurigii hooygiisa weyn uu yahay waxay leeyihiin bariga hore ka badan baan jiri jiray halka waa ka xijidhay oo cid uma dhawaan jirin marka qaab saas ayaa laga haystaa laakiin ninka aad ii sheegtay inuu salaanka ku sameeyay ama jaranjaradu waxa kale oo aad ii sheegtay inuu shinni ku beeray markii dambe shinnidaas ma joogtaa wali ma hadda ma joogto oo ninkii waxa weeyaa waa dhintay ka bacdi shinnida waa lagu hayn jiray sanduuqyo u dhigay hadii uu ninkii ka dhintay meeshiina cid ku sii haysan may jirin shinnidina waa iska tagtay meel kale ay aaday hadeer ma joogto shinnidii gartay marka meeshani ma meesha ugu muhiimsan ee la soo booqdaa marka la yimaado magaalada Qardho mise waxay ka mid tahay goobaha la soo booqday xiisaa leh goobaha ayay ka mid tahay meel badan baa jira insha Allah waana mareynaa waa hagaag waxaan u malaynayaa imika inaad fikrad wanaagsan ka qaadateen hoggan halalow yahay booqan goobaha kalena waa nala soo daawanaysaa sidii markii horeba aan idiin sheegay hawlahan halkan u nimi magaalada Qardho waxa kamid ah in raashin gargaar oo la siinayo dadkii abaaraha ku tabaaloobay ay qaybinayaan saraakiil nala socdo ka tirsan hay'adda ARC raashinkii wali dhexdu ku soo jira saraakiisha halkan maraya ee ka tirsan ARC waxa kamid ah Roble Cabdi Muuse Roble raashin intee lag baa maanta qaybinaysaa waa maasanta Cabdi Salaan guud ahaan waxaanu ka qaybinaynaa Puntland raashin aynu ugu tala galnay 2,000 oo qoys oo kamid ah dadkii abaaruhu saameeyeen raashinkaas wuxuu ka kooban yahay 7 shay oo bariis sonkor daqiiq saliid caano timir iyo sharaab
marka raashin dadkii abaaruhu saameeyeen aad iyo aad baad u mahadsan tahay gudoomiyaha haddaan abaarihii su'aal ka weydiiyo gudoomiye de maasha Allah dhulku imka waa barwaaqo xareeda meel walba jiifta raha kaciyaya laakiin abaartii baanayd ee geeyiga Soomaalida soo wada martay sidee bay deegaankan u saameysay runtii deegaanka waxa weeyaan deegaankan hadda fiirsan waa deegaanka dhul daaqsimeed xooluhu ay isugu yimaadaan xilliga jiilaalka runtii jiilaal badan baa adag baa dhacay xilligii ay soo dhaafno December waxa ka daay dhinacan bariga hadda inay ka xiga roob baa ka daay Soomaaliya oo dhan waxay isugu timi halkan inta waxa oran karnaa inta af Soomaaliga ku hadasha halkay isugu timi runtii jiilaalkaas wuxuu ahaa jiilaal adag oo aan Soomaaliya soo marin xoolihii waa dhinteen runtii waxa la isu taagay inta joogto oo timin naqakan in la isu taago waana la isu taagay waxaan oran karnaa xoolaha halka jooga 6% waa dhinteen 40% baa haray annaguna waxaan misna isu sii taagnay in dadka soo baadi guuray oo dhulkii garan waayay inaanu aad xooga u saarno dad badan hal soona hadda qarrood ilaa 20 gaari baa wax gudoomay wax baawur xumaaday wax ka dhacay inta waxaan kuwa kale ku bedelan xoolihii waa gaarsiinay naqi baa gaarsiinay runtii wax badan baa loo qabtay xagga biyaha waa laga caawiyay raashinka waa laga caawiyay aad biyaad ugu dadaalay marka dadka gudoomiyay imika abaaraha xoolihii ay ka raaceen ma meel gaar ah dejiseen runtii ma dejin hadda qarro ilaa 250 qoys ayaa jooga oo waxay ku dulnool yihiin eheladoodii ayay ku dulnool yihiin waxaan diidnay in kaamam la sameeyo kaamam hadda qaxootiya marka dadku way la dulnool yihiin waxaan rabnaa bal in hay'adahana waxaan u soo jeedinay dadka xooluhu ka dhamaadeen ama qaybta u hareen in loo celiyo xoolihii gadaal wax loogu iibiyo oo dadkii baadihii ay ka soo dhamaan laakiin gadaal loogu abuuro baadiyaha waa hagaag gudoomiyaha ayaa dabcan ina soo tusaya goobaha kale taariikhiga ama xiisaha leh ee magaaladan Qardho waata la yiraahdo 7 kasto xun ama adag waxa ka dambeeyay 7 wanaagsan abaartii runtii masiibada ahayd ee lagu hoobtay dadka xoolihii oo dhamay ka raaceen sima loogu magac daray waxa ka dambeeyay waxa arkaysaan waxaanu joognaa duleedka magaalada Qardho gudoomiye goobtan maxaa la yiraahdaa goobtan waxa la yiraahdaa ceel harre waa balli weyn oo biyaha qabta waata ceel harre maxaa kaloo caan ku yahay ceel harre meesha tan waxa weeyaan waa dooxooyinka waaweyn oo Qardho qayb kamida weeyeen halkan agteena waxa isugu imanaya 4 dulood oo Qardhood waa meesha sayidku yiri dalka xagee ugu qurux badan la weydiiyay waxa wuxuu yiri 4 dulood oo Qardhood oo doogsaday ma ku dadeen buu yiri maanta waa inoo doogsadahay waana arkaynaa laagtana waa laag ka soo baxday oo ceel harre la yiraahdo ma sha Allah marka afarta aad sheegayso ee dooxo xagee bay isugu yimaadaan waxay isugu yimaadaan bartan waa 1 kiiloomitir inuu ku jira gudoomiye waxa halka iga muuqdo kale xaasas iyo caruur iyo ma dad meesha u soo dalxiis tagayba meesha waa loo soo dalxiistay meesha waa meel dalxiis oo marka uu roobku ka dabo barwaaqada saatan oo kale ay noqoto runtii waxa weeye meel bulshadu ay timaado oo maalintii lagu qadeeyo oo ilaa casarkii laga carraabo dadka waa u jeedaan hadda dadka oo dhan ciyaaladii xaasaskii kulli waxay karsanayaan qadada hal korsanayaan qabowgaas bay soo raaceen iyo raxmadda rabbi waan uga mahadnaqaynaa marka xooluhu halkan ma ka cabaan ceel harre way ka cabaan xooluhu waa yimaadaan laakiin hadda uma baahna hadda waa barwaaqo waa fadhi ku dhereg waa fadhi ku dhereg way barqada fariistaan gudoomiye marka magaaladan Qardho iyo nawaaxigeedo imika aynu joogno roobku sidee ku ahaayeen roob lixaad la ka daay runtii waa wax loo ilaaha loogu mahadiyo laakiin roob fiican baa ka daay gartay waxaan u malaynayaa halkan qofka seexda dirmooyin baa halka iga muuqdee hurdadii dhaaftay 92 waa soo noqonaysa maya waxa u soo noqonaysa 1920 tii dhaaftay waa soo noqonaysa
runtii waa meel aad iyo aad u qurux badan oo doogga iyo dhirtii oo magooshay iyo biyihii oo fadhiya waxaasoo dhan baa isqabsaday oo carruurtiina ay ku dhex ciyaarayaan abaarta sidee ilaa iminka looga soo doogay markaa abaartii dad iyo xoolo insha Allah wixii noo haray waa soo doogeen inkastoo dee xoolihii intii badnaa ay dhinteen laakiin alxamdulillah inta soo hartay maanta ayaa dadka ku filanaya markii horena xoolaha iyo dhulka waxa moodaa in xoolihii bateen marka ilaahay waxa weeyaa marka xoolo bataan waanu saamiyaa si uu dhulka ugu filaysiyo marka waxaan leenahay dadku inay ka faa'iideystaan xoolaha yar oo u soo haray inay ka faa'iideystaan oo ay u sameystaan wax mustaqbal iyaga u leh laakiin xoolaha in la iska dhaqo maaha laakiin gudoomiye arrinta kale inta badan Soomaaliya laga dhawaajiyo waxa weeye in dhulkii sare laga wada dhigtay oo deedna xoolihii meel ay daaqaan ba ay waayeen oo meel kasta shaagii gawaaridu uu maray oo biyo qabatinka dhulkii ahaa uu meesha ka baxay dhibaatada idinku seekatiin runtii Soomaaliya waa la qabnaa inteeda badan runtii anagu qarda ka ahaan waa baabiinay dhammaan seerayaashii sanadkii weyd baan baabiinay markii la isugu soo guuray halakan hal seero oo hadeer yaal ma jiro walow ay dib ay ka timi baabuur fara badan ayaa soo gurtay dadkii xoolaha ay watay oo u soo naqraacisay naqa dhulka baabuurtii waxay sameeyeen marka boholood badan bay sameeyeen dhulkii waa dileen runtii waxa ka dilaacay boholo dooxooyinka hadda dooxooyin badan baa waxa dhacday inay biyihii ka leexdeen insha Allah waxaan rajaynayaa iyadana in assessment la sameeyo aan qiimeeyno oo qolyaha deegaanka la kaashano insha Allah aan wax ka qabanaa rajaynaa way bal hadda halkii ay ku kulmayeen afarta dooxo ayaynu imika soo eegaynaa waa goobtii sayidku uu sheegay weli maynu gaadhin anigoo quruxda dee dhulkan la makaagsan halkii gudoomiyuhu uu sheegay ee sayidkuna uu quruxda ku tilmaansaday oo ah halka afarta dooxo ay ku kulmaan halkaasaynu imika soo eegaynaa imika waxaanu soo gaadhnay goobtii gudoomiyaha degmada Qardho inoo sheegayay sayidku uu ku amaanay bilicda laakiin intaynaan halkaa tegin waxaan jeclahay bal hadda tusaale yar inaad ka siiyo marka wax la dhisayo dee saamaynta ay deegaanka ku yeelan karayso dhinacaasi waxa weeye dooxada Kurtumo dhinacan waa dooxada Kurtumo dhinacana waxa ka soo dhaca ceel dooxada ceel mur la yiraahdo dhinaca waxa ka soo dhaca dooxada la yiraahdo Sajilbo dhinacana waa Baalqoomo biyahan oo dhan waxay isugu soo dhacaan Baalqoomo ka bacdina badda ayay galaan oo 250 kilomitir noo jirta gartay laakiin labadii gabiye wadadu ama labada dhinac ee jidku waxa gudoomiye qaybna ay sida ugu noqotay cagaar qaybna aanay cagaar u lahayn runtii waa u jeedaan dhinacan waa cagaar waa dhanka biyo ku soo dhacayeen dhinacana waa abaar oo waa dhankay u dhacayeen dhibtana waxa leh laamigan markii la sameeyay 1988 ayaa waxay ahayd in laga sameeyo buunda jiif laakiin ma suuroobin waxa la biyaha ay ugu suurta gali kartay inay dhinaca u gudbaan laakiin ma suurtoobin oo waxa la yeelay waa la taagay waxay noqotay moosas yar baa loo sameeyay moosaskiina waxa weeyaan biyihii intii badnay meelo kale ayay u duween marka waxay ahayd in hadda ka bacdi laga taxadaro waxaan soo jeedinaynaa laabiyaha Soomaaliya marka loo sameeyo in laga taxadaro meelaha biyuhu ay maraan oo buunta jiifsiyo loo dhigo gudoomiye halkan waa goobtii aad inoo soo waday baan u malaynayaa sayidkuna oo quruxda ku amaanay dooxooyinka afraad badan ay isugu yimaadaan barwaaqadeedu san ma ka badataa waa ka badataa oo saa u jeedid hadeer xilli waxa jirta xaggan iyo xagga labadu ay barwaaqo yihiin hadeer waa u jeedaa dhinacanka biyihii baa xiray marka waxa jira mar biyuhu ay ka maraan dusha ka maraan laamigan oo wadanka oo dhan uu green isla noqdo runtii weli halka hadda waxa oran karnaa roobka waa ku yar yihiin laakiin mar bay ka badan yihiin tan deegaankan markaa dooxooyinkii geed hoosaad badan buu leeyahay dhirtii waaweyneyd saaguma badna inkastoo qurac badani ku yaallo deegaankan ma geel uu fiican yahay mise adhiga deegaankan wuxuu u fiican yahay dooxooyinkan geela iyo idaha u fiican yahay arigo geela iyo idaha dee waa ujeedaan qarkiina waa ujeedaan riyuuna qarkan ka baxayaan oo riyuuna buurahaasi faranayaan geela iyo idahuna dooxadaasi daaqayaan galabtiina waa soo wada dhacayaan halkan wada joogayaan gartay deegaan kale oo dhamay markaa dooxooyinku maad bay ugu badan yihiin deegaankan oo la dooxooyinku waa ku badan yihiin oo runtii waxa weeyaan
dooxooyi waaweyn qarar yaryar buuro waaweyn hadeer waxa la oran karaa hadeenu dhinacantan koonfurta u sii kacno dhul wada siman oo dooxa ah ayaynu wada tegaynaa waxa la yiraahdaa ayax geedka